maanta ay tahay taariikhdu 13 bishii 12aad 2023 waxaan shirkan jaraa'id u qabanayaa anigoo ah taliyaha saldhigga baxdo Maxamed Feergele waxaan u qabanayaa shirkan jaraa'id ogeysiin ama baaq meeshan horta waxaan ka salaamayaa ciidamada booliiska Soomaaliyeed saraakiisha taliyaha booliiska Soomaaliyeed taliyaha qaybta galmudug saraakiil xigeenada ciidamada meel ay joogaanba xasuuskoodan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan leeyahay salaanka bacdi shirkan jaraa'id waxaan ugu imid maantay inaan ka hadalno waxyaalo nagu soo laalaabanay baaq aan u jeedinayo degmada baxdo dadka ilaahay makansiiyay oo degan waxaad ogtiin walaalayaal inay yiraahadeen ciidamadii la soo carbiyay oo booliiska maamul goboleedka galmudug oo juhdiga badan la soo bixiyay nasiib intaad u hesheen ciidan sharaf leh tayo leh tiro leh inay yimaadeen ku soo biireen degmada baxdo kontarooladoodii saldhigoodii shaqadoodii ay la wareegeen si habsami leh ay u wadaan sida darteed waxaan ka codsanaynaa marka koowaad oo mudnaashaha koowaad idinka insiinayna dadkii reer baxdo sida sharafta la shalay nagu soo dhaweyseen degmadiina sida aad qalbiga iyo hil iyo ho aad nagu garab istaagteen sida aad nagu dhabar adeegteen shaqaaqooyinkii shalay sidii aad maaragtay aad noola shaqayseen sida darteed soo dhawaada walaalayaal inta xishoonaysa oo wax garanaysa oo sharafta maamuuska leh waxaan leenahay soo dhawaada inta kale oo in sharcigu qabto u baahan ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa loo carbiyay oo loo keenay in ay sharci ay yihiin tiirarkiisa inay yihiin dadka lagu talagalay inay qabtaan u soo tababaray loo keenay u shaqeynayaan intiina sidaasna gacantii in qaban lahayd baa timid joogta shaqadeedii u timid ka dheeraada inta sharcigu uusan gacantiisa in ku qaban waxyaalaha qaladaadka ah oo maaragtay aan aqshaxa iyo nidaamka uusan ogolayn kuwa qamrada caba kuwa dhaqan maxamada kale yaqaana kuwa xaafadaha u dhaca iyo weerooyinka la sheego waxyaalaha noocaas oo ay baxdo ka bacaagan tahay laakiin inaysan isku daynin kuna soo lug yeelanin degmadu waxa dadka qaarkood aaminsan yahay meeshu degmay noqotay qof kastaba degmo waa inuu yimaado waa degmo culimo waa degmo taqwo waa degmo diineed waa degmo akhlaaqeed intaas ayaan anaguna ciidanka booliiska Soomaaliyeed ugu nahay oo aan rabnaa sida ay degmadu asalka culimada ay u tahay inaan asalka diinta ama sida sharciga booliiskuba uu kulligiis u dhigayo waxa weeye sharciga booliiska hal qodob oo kuma jiro diinta khilaafsan diinta ka soo horjeeda shaqadeena marka waxay tahay waxa diinta uga shay inaan qabano inaan marka sida ku salayno wax qabadkeena gacan biran aan kala hortagnaa rabnaa meesha waxaan ka hadlayaa kale ka soo jeedinayaa ciidamada xooga dalka qaybihiisa kala duwan daraawiishta ciidamada kale oo deegaanka oo qawaarish la dirirka ah oo degmada jooga in ay ciidanka booliisku ay la shaqeeyaan wanaag kula shaqeeyaan laakiin aysan noqonin ciidanka booliisku inay isku dhacaan shaqadooda ciidamada booliisku uu gudanayo halta kan isu ka tanaasuleen waxa ognahay shalay shaqaaqada ciidamada deegaanka jooga ciidanka miduhu uu ku sameeyay ciidanka booliiska waxa gacanta qabanaya sharciga haddii laga badbadiyana sharciga laftigiisu wuxuu ku farayaa inaad gacan bir ah aad adeegsato taasna waxaan ka sugaynaa oo aan u sheegaynaa intii og oo u xaqale inay ka hadasho oo u xaqale inay ka soo jawaabto sida ugu dhaqsiyaha badan inay processkana ka soo bixiyaan ay ka soo jawaabaan mar dambana aysan soo laabanin degmadan iyo saldhigyadiisa iyo sharafkiisa inaan la soo aadinin shaqaaqooyinka anigu aan dareemayno inta ku shaqada leh oo ogna ay og yihiin wixii shalay shaqaaqadii shalay meeshan waxaan ka codsanayaa saraakiisha xukunta ciidanka 12aad daraawiishta ciidamada kuriimaadka ah oo anagu hadda inay naqshad kasta iskugu jiraan iskugu yimid hiilka qawaarishta xoreynteeda iskugu yimid inay waxyaalaha deegaanka iyo degmada shaqo dhibka ku ah in ciidamadooda xadataan oo qoryaha magaalada ka xadataan
sharciga ay nala ilaaliyaan haddaysan nala ilaalin anagoo sharciga ku dhowrsanayna sharciguna sheegayo inaan sharciga islaamkana aan ku shaqeyno oo ku istaagno shaqadeena ay tahay midka buugta qawaaniinta noo qoran buugta noogu qoranna ayna farahayaan shaqada aan leenahay inaan kaga tanaasuleynin haltaa ku markaan ka bacdi baaq aan bixinahay haltaa ko oo sharciguna farayo oo amniga inaan sugno ah oo shaqaqadiisa inaan ogaano ah oo shaqamciisa inaan ogaano haltaa aan ka tanaasuleynin markaan bacdi ma jirto saraakiisha waxaan ka codsanaynaa inay xadataan ciidamada ay xukumaan madaxda sare waxaan ka codsanaynaa inay dardaaran dhab asiyaan oo sharciyadu ciidanku aan sharci lahayn ama aan lahayn manaahib degsan oo hogtaan ma jiro in loo sheego in ciidan kasta shaqada uu leeyahay uu qabsado uu ka ekaado haday nagu soo laabato waxyaalaha aan dhibsanayno ay og yihiin saraakiisha joogta ka shaqeysa ciidamadaas ay og yihiin inaan ka tanaasuleynin haltaa ko oo kamid ah marba ka tanaasuleynin inaan ka tanaasuleynin dadweynaha waxaan ka codsanahay meeshan walaalayaal ciidanka degmada baxdo ay nasiibka u heshay waa ciidan sharaf badan waa ciidan shaqadiisa ku filan waa ciidan dhinac walba ka dhisan waa ciidan aan nasiib u hesheen la in soo xulay walaalayaal waxaan ka codsanahay inaad nala shaqeysaan ciidanka aad garab istaagtaan madaxdiisa aad la shaqeysaan annagana waxaan in ka ballan qaadaynaa sida wanaaga ah oo sharciga islaamkuna in ogol yahay qawaaniinta booliiska oo degsanna ay ogashay inaan in kugu adeegno hameen iyo maalinna aan in soo jeedno la dirirna qawaarijta la dirirna mooryaanta shaqooyinkiina naqaanaa qawaaniin degsan oo aan ku shaqeyno aan naqaano ayadoo aan wax ku sii darnay inaan 24 saac aan nafsadeena iyo soo jeedkeena iyo shaqadeena inaan insiino waxaan ka codsanaynaa walaalayaal inaad nala shaqeysaan qof kasta oo meesha uu joogo shaqaqada iyo dhibaatada iyo waxyaalaha ka jira loo soo gudbisaan inaad idinku gacantiina ku qabataan oo aad si degdeg ah nala soo xiriirtaan waxaan leenahay walaalayaal degmada baxdo oo ugu horeeyaan culimada diinku ay ku xigaan baalka la yiraahdo ururada dhalinyaradu ay ku xigaan hooyooyinku oo waxaan leenahay walaalayaal shaqadii ciidanka booliisku oo lahaabaan u taaganahay inaan qabano idinkana waxaan ka codsanaynaa inaad garabkeena istaagtaan wax kasta oo aan dhibaya oo qawaaridta ugu horeysana aan insha Allah aan iska kaashano inaan ka wada qabano waxaan ka hadlaynaa codsanaynaa wada shaqeyn dhab ah waxaan in sheegaynaa inaan in diyaarnahay waxaan in sheegaynaa degmadu inaysan sidii ay hor u ahayd oo ciidan laanta u haysan maanta ahayn degmadu ciidankeedu u diyaar yahay shaqadeedu ay diyaar tahay idinkana waxaan ka codsanaynaa shaqo wanaagsan ciidamada kale oo qalabka sida oo sida ciidanka 12aad xooga dalka ciidanka daraawiishta ciidamada kale oo iskugu jira inta ah oo u yimid heelka walaal u yimid intuma inay walaalayaal aad shaqada midda aad leedihiin aad qabsataan midda gudaha oo ina lahayna aad waxa weeyaan aad ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay kaga xadanaataan qoryaha magaalada lala soo aadayo oo sida aan shaqo darrada lagu sito oo sida aan shaqo darrada waxa weeyaan lagu dhibaateynayo shaqooyinka lagu soo horjeedinayo inaad ka dheeraataan in sababin isku dhac ciidan oo dadka iyo deegaanka iyo maslaxada guud dabar jabiya inaan isku daynin sidaas aan leeyahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.